waxaan aad iyo aad u faraxsanahay inaan mar labaad aan imaado xarunta Al-Ihsaan ee qaybta degmada Kenya Dr. Cabdiqaadir Cumar Maxamuud Dr. Social oo runtii gacan weyn ka geystay qaybaha bulshada kala duwan gaar ahaan qaybaha macallimiinta dugsiga Qur'aanka Kariimka iyo ardadooda kuna daaweeya si free ah ama si lacag la'aan ah xataa uu ku bixiyo daawooyinkiisa lacag la'aan hadday culaysi ama kaliimo ay gaartana oo lacag la'aan ugu qalo sidaa daraaddeed xataa haddii ay macallimiintaasi dhibano ay wataan ha noqdaan dhibanahaasi waalidiintooda ha noqoto ardada naftirkooda ama ardada waalidiintooda si gaar ayuu u ixtiraamayaa asigoo markaas uu milicsanaya ama uu firinayo qaybta uu xambaarsan yahay oo ah kalaamka ilaahi subxaana wa tacaala asagoo markaas danaynaya ama hadafkiisa ujeedkiisa ay tahay sida kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala indhaha araggaasi looga raacin lahaa isagana si free ayuu ku bixiyaa intaana wuxuu u yeelaya asbaabaha u yeelaya waxaa ka mid ah asagoo firinayo macallinkaasi xambaarsan qur-aanka kariimka iyo dhibanaha uu wado ama dhibka haysta macallinkaas asigoo fiirinayo ayuu intaa u samaynaya asigoo weli kasii rajaynaya alla subxaana wa tacaala inuu ka dababsiiyo asbaabta u sameeyena ay tahay liajli illaahi tacaala sidaa daraaddeed waxaan bulshada weyn ee Soomaaliyeed ugu baaqiyaa gaar ahaan dhakhaatiirta inay sida Dr. Cabdiqaadir Cumar Maxamuud Dr. Social uu u fududeeyay macallimiintaasi wax ugu qabtay hab iyo heelad uu la taagan yahay kalaamka ilaahi subxaana wa tacaala inuu kor noqdo oo indhahaasi uu ka daaweynayo daawooyinkana ugu darayo asoo ajar ka raadsanayo sidaa daraaddeed dhakhaatiirta waxaan leeyahay ku dayda Dr. Cabdiqaadir Cumar Maxamuud Dr. Social haddaad leedihiin dhiig iyo dhacaan oo qiiro aad leedihiin waa da'da yar lagu daydo ama daktarka lagu daydo daktarka mudan weeye waxaan leeyahay kaalinta koowaad ayuu gobolka Banaadir ka galay waxaan idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad ama hadalkayga soo koobayo ku dayda Dr. Cabdiqaadir Cumar Maxamuud Dr. Social sida weyn ee bulshada gobolka Banaadir ugu daaweynayo iyo sida naxariista leh oo u jecel yahay bukaanada uusan albaabkiisa marnaba laga celin 24 saacna ay ku furan tahay xaruntiisa inta yar uu gudaya mooyaane intaas ayaan ku soo fiiriyay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.